madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Dani wuxuu qasriga madaxtooyada Garowe ku qaabilay wafdi ka socday hay'adda UNICEF oo hogaaminayo madaxa Soomaaliya ee hay'adaasi iyo isuduwaha hay'adda ICRC Puntland oo maanta soo gaaray magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland. kulamadaasi waxaa madaxweynaha Puntland ku wehelinayay wasiirka wasaaradda qorsheynta Cabdiqafaar Cilmi Xaange, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdulaahi Maxamed Xasan, agaasimaha guud ee madaxtooyada iyo mas'uuliyiin kale. kulanka madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta hay'adahan waxaa looga wada hadlay mashaariicda horumarineed ee ay ka wadaan Puntland, waxaana ka warbixinaya afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Yuusuf Jaamac. بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo 4 Juun 2019 madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Dani waxa uu xarunta madaxtooyada kula kulmay wafdi uu hogaaminayo mas'uulka cusub ee UNICEF ee u soo magacaawday Soomaaliya Werner Skaltin iyo xubno ka tirsan saraakiisha UNICEF ee Soomaaliya. kulankaasi waxa ka qayb galay wasiirada qorsheynta iyo waxbarashada iyo saraakiil madaxtooyo. waxa looga hadlay sidii loo sii wada shaqeyn lahaa iyo in UNICEF ay sii joogtayso shaqada ay ka hayso iyo mashaariicda ay ka fuliso Soomaaliya gaar ahaan Puntland. iyadoo madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Dani uu u sheegay madaxda UNICEF in waxqabadkooda ay ku saleeyaan baahiyaha deegaamada ka jira oo ka yimaada, taas oo uu sheegay inay muhiim tahay si looga jawaabo baahiyaha jira. dhinaca kale xubno wasiiro ah oo ay hogaaminayaan wasiirada qorsheynta iyo waxbarashada ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxda UNICEF, waxaana ay ka wada hadleen in qorshaha 5 sano soo socota ee horumarinta Puntland lagu jaangeeyo qorshaha waxqabad ee UNICEF si labadaas qorshe la isugu jaangooyin lahaana laga shaqeeyo. dhinaca kale madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Dani waxa uu xarunta madaxtooyada kulan kula qaatay Emmanuel Police isuduwaha ICRC Puntland oo fadhigiisu yahay Nairobi iyo waliba madaxa xafiiska ICRC ee Puntland Cabditax Fandal. waxa laga wada hadlay shaqada ICRC ay ka wado Puntland iyo sida ay wax u socdaan iyo sidii shaqooyinkaasi muhiimka ah loo sii joogteyn lahaa. Suweyska Ayte, warbaahinta dawladda Garowe.